ku kooban ama maxaabiista shilka weyn ku kooban waa arin dalka dhan ka jirta oo iminka wax liiso sheegaya koonfurta Burco deegaanka la Baliweyn waxa lagu tacaalayaa 70 qof waxa ku dhintay 3 qof baa ku dhintay sheekh waa lagu tacaalayaa qof baa ku dhintay waxa weeye waxa wanaagsan horta arintu international marka maalin ba halkii wax ka dhacaan hadaan ku yaacno ama wasaaradda marka khusaysa ka hadasho maaha wax umada anfacaya ama umada wax u qaban karaya wasaaradda waxa qaabilsan wasaaradda caafimaadka guud ahaan iyada qaabilsan ka jeelka ku jira iyo ka hawdka jooga kama hadal hatta waxan waxa rasmiga yihiin go'aan cad laga soo saarin anagu ma aragno ama aanu shakhsiyan ma arko xaniin shambiyod waayo shambiyod 12 saacadood gudahood wax ku dila mayno arag tirada inta leeg waliba waxan waa koleer weeye waayo hay'adaha qaar baa ayaa sheegay inay isku jiraan laakiin isku ma jiri karaan oo koleer weeye waxana markii hore waxay nooga soo gudbeen xadka Itoobiya nooga soo gudbeen oo Itoobiya ka bilaabmeen waqtiga abaaraha wax kasta uu yahay hal mar lama sameeynin wax la yiraahdo karantiima lama sameeynin oo xitaa aag qura lama xidhin cid ka baxaysa cid soo gelaysa lama xadidin national campaign wasaaradda may sameeynin dawladdu walaanka kuma dhawaaqin dawladdu walaanka xanuunka noociisa warcad kama soo saarin waxa weeye waqtiga roobabkana fiditaanku uu hawl yar yahay marka roobku da'o bacteria halkan qofkii ku saxarooday ka qaaday ayaa qofka halka ugu dambeysay dalka ugu geynaysa protection lama sameeynin sanitation lama sameeynin dadka waxbarasho lama sameeynin daaweyn lama sameeynin campaign rasmi dawladdu may qaadin warbixin rasmi lama soo deeynin marka inuu dayac baan u arkaa dayacyada dalka ka jira kamid ah laakiin uma arko wax sahlan oo dhalaadaysan karo wasaaradda cadaalad nama khusaysiyo Cheltone waa arrin qaran weeye waa xanuun ballaaran oo u baahan hawluhu u baahnaa in laga qabto oo wasaaraddu rasmi uga hawl gasho oo daraasad rasmi ah ka xigta alaanka guddimayno aragle oo daraasayna xanuun oo wax been ka soo saartay oo problemka iyo dhibaatada jirta soo cadaysay ma arag markaas dawladda la heli kara magti marka waxaan u aragnaa dayac baan u aragnaa waan dayacada ugu xun waxyaabaha qaar dadku ka sii noolaan karaan qofku waxbarasho la'aanta gaajada waxba ka sii noolaan kara laakiin xanuunka noocan ah emergency-ga ee 12 saacadood qofka ku dilaya aan alaanka cid u jeeda oo miisaan ku leesinaysan arag dayac baan u aragnaa waan uga taxsiinaa dadka ku dhintay inta xasuusin Ilaahay baan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo isaga awoodo